waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. Waxaynu guda gelaynaa qaybtii 12aad ee casharadeenii inoo soo socday. Sida shaashada ka aragtaan waxaynu ku baran doonaa sida loo diyaariyo shahaado ama loo sameeyo. Marka shahaadada hadda halkan ka muuqato kale waa iska sample. Shahaadooyinka abaalmarinta sida loo diyaariyo weeye. Haddaad doonaysid magaranaysaa qof walbaaba color iyo dooq buu leeyahay. Marka kalarro badan baa waxay ku jiraan Photoshopka uu leeyahay. Qofku nooca doono iyo kalarka doono buu shahaadada ka dhigan karaa. Marka dee kulli kalarrada iyo markaynu isticmaalaynaa arki doontaan. Qoladii horey la socotayna hadda kalarrada horey baan noogu soo sharaxnay. Marka waxaynu isku daynaa markaynu guda galno casharkeena. Marka waxaan iska xiraynaa shahaadooyinka hore meesha ku jira si aan boos u helno aan ku shaqeyno. Page cusub baynu soo furanaynaa. Marka horey waxa u barateen anagoo inches isticmaalna. Marka inches iyo wax macnaa ma sameynayso laakiin muhiimaddu waa inaad taqaanid size-ka hadda u baahan tahay. Marka hadda balaca aynu qaadano 297 dherer ah. Haddaad rabtiin inaad inches u bedeshino automatically halkaas uu isu bedelaya haddaa inches u rabtid. Marka horey baynu uga soo hadalnaa iyadana. Hadda waxaynu guda gelaynaa casharkeena. Halkaa markaad joogtid waxaynu soo furanaynaa mastarad ama ruler saa u garanaysaan. Control R baan leenahay. Mastaraddu waxay naga caawin doontaa in magaranaysaa qiyaasta aan u baahannahay aynu magaranaysaa line-ku inaga qalqaloocan. Layer baan soo furanaynaa kadibna qalinkan baan qaadanaynaa. Kalarka u baahan tahay baad iska gashanaysaa. Marka hadda anigu waxba kalarka bedeli maayo. Waxaynu sameynaynaa qalinkan kusoo laabanayaa. Qalinkaynu isticmaalna waa pen tool horey baan usoo sharaxnay. Halkaas ay imanaysaa dhag baa ku siinaysaa. Qiyaastii meelahan ay imanaysaa. Kadibna kor baa u qaadaysaa. Inahaasaan uga tegaynaa. Kadibna inahaasaan imanayaa. Dhag baan ku siinayaa. Kor baan tegayaa. Inahaasaan uga tegayaa. Control T baan leeyahay. Sorry. Control T baan leeyahay. Wax yar baan isku dayayaa inaan madaxa kor u qaado. Kadibna wax yar xagga u durjiyo. Inahaasaan uga tegayaa. Marka mastarada meelahan iska keenayaa. Kan baa waxaan ka sameynayaa copy. Control J baan leeyahay. Kadib kalarkan kasoo bedelayaa. Line option baan tegayaa. Kalarkaan rabaa inaan ka bedelo. Gradient baan tegayaa. Okay baan leeyahay. Kalarkaan u baahnaa waa ii diyaarsan yahay dabcan. Marka halkaa kalarro badan baa ku jira. Waa arki doonaa qaybaha dambe baan dooranaynaa. Kalarka marka waxaan sameynayaa kan baan qaadayaa waa hoos marinayaa. Hadda kii copy-ga ahaa waa koreeya laakiin waa ka hoos marinayaa hadda. Waa ka hoos marinaya. Marka wax yar baan hoos soo dhigaya. Qiyaasaan ugu talagalaa hoos u dhigaya. Marka hadda qaybtaas saas igu joogtaa. qaybtii hoose baan isku dayaa inaan diyaariyo.
kadib sidii oo kale layer baa furanaysaa. layer baa furanaysaa. halkan aad imanaysaa, qalinka dhag ku siinaysaa, kadibna halkan aad imanaysaa, dhag baa ku siinaysaa, kadibna hoos baa kor baa u jiidaysaa, hoos baa macnuhu soo yara dhigaysaa. marka qalooca ilaa inta aragtid baa ka dhiganaysaa. waa sii daynaysaa, halkan aad imanaysaa, halkaa markaad timaado aalta qabanaysaa, dhag baa siinaysaa saa u tadhid, kadib halkaasaa dhigaysaa. inahaasaan u daysanaynaa. marka heer baan hoos u dhiganaa. iyada laftigeeda marka copy baan ka sameynaynaa, control J baan leenahay, kadib marka control J niraahno colorkaan kasoo bedelanaa sidii. haddaad doontidna adoon colorka soo bedelin waxaa samayn kadhaa copygii hore oo jaallaha aan ka dhignaa imanaysaa, right click baa leedahay, waxaa oranaysaa copy layer, colorka si ugu kobiysatid, kadibna kanaad dul imanaysaa, right click baa leedahay, paste layer baa oranaysaa, colorka saas ugu wareegayaa. taana waa samayn kadhaa. mideeda kale marka tanna waxaa la rabaa hadda copygaa soo koreeya inaa hoos marisid, waa qabanaysaa shapekaa kaloo shape 2gaana ka hoos marisid baa la rabaa, kadib kor baa u qaadaysaa, isna kor baa u qaadaysaa. marka asagana intaa saas ku joogaa. marka waxaa samaynaysaa intaa kadib haddana layer baa soo furanaysaa. qaybtan aan tegaynaa, rectangle baan qaadanaynaa ilaa halkaas aan wadana. markaan wadno waxaan imanaynaa, halkan baa imanaynaa, size-ka rabnaan ka dhigaynaa, macnihii waxaan size ka dhigaynaa geesahaas baan rabnaa oo inaan ka dhigno. marka size-kaasaan gashanaynaa, waa kaas wuu isbedelay. markuu saa inoo noqdo kadib waxaan sameynaynaa isla layer kalan qaadanaynaa. halkan colorkaynu ka bedelnaa si isugu dhex khaldamin, waxaan ka dhiganaynaa kaasaynu ka dhiganaynaa, jaallahaasaynu ka dhiganaa. marka ka dhigano isla asagii baan dul imanaynaa, isagana waxaa maaha laakiin waa yar yahay oo uma baahna, waan iska gelinaynaa dhib ma lahan. marka laynkaanaan samaynay baan dul tegaynaa, aalaltaan qabanaynaa, darag baan leenahay ama waa jiidaynaa saa waranaysid, anina si aan taa copy uga samayno. marka waxaan sameynaynaa marka intaa kadib saddexdoodan waa isku xiraynaa. kan saddexdaa rectangle waa isku xiraynaa, group baan ka dhigaynaa, group baan leenahay. markaan group ka dhigno waxaan doonaynaa hadda ayagu way soo koreeyaan in aan gidaarka ka shamarino oo qaybtan iyo qaybtan aan ka shamarino. marka saan oo shamarino waa soo qabanaynaa, hoos baan keenaynaa,
weli qayb baa ka hooseysa marka waan qabanaynaa hoos baan usii dhigaynaa yaa ka hooseeya qaybaha weli ka hooseeya waa kaa hoos baan marinay kadibna meesha rabtid baa dhiganaysaa halkaa markay joogto waxaan samaynaynaa waxaan soo gelinaynaa qoraal baan soo gelinaynaa marka qoraalka hadda waan gelin karnaa laakiin waqti bay naga qaadanaysaa waan diyaarin karnaa laakiin waqti bay naga qaadanaysaa qoraal inoo diyaarsanaa waan soo gelinaynaa qoraal inoo diyaarsanaa waan soo gelinaynaa dhinacaasaan uga tegnaa ayadana loogada waa soo gelinay dhinacaas aynoo joogto waxaan kaloo soo gelinaynaa looga kalaan soo gelinaynaa iyadana waa tan guest joyce tan loogadan baan soo gelinaynaa kadib ayadana waan yaraynaynaa qiyaastii tanaa la ekeysiinaynaa marka kadib halkan aan dhiganaynaa okay loogadan halkaas aynu dhiganay waxaan samaynaynaa halkan qoraalla inoo haray halkan waxaan ku qoraynaa signature baan halkan ku qoraynaa colorkaan bedelaynaa guduud baan ka dhiganaynaa kadibna waxaan leenahay signature fartaan yaro bedelaynaa marka okay finger yar baan soo qaadanaynaa dhinacaasaan u daynaynaa kalarka waxaan ka dhigaynaa guduud kadibna hoos baan soo dhigaynaa
inahaasaan u daynaynaa waxaan soo gelinaynaa signature baan soo gelinaynaa signature baan soo gelinaynaa kadib waa yareynaynaa signatureka anaa iska leh waa signaturkayga caadiga ahaa oo aan isticmaalo marka book baan ku sawiray kadibna backgroundka ka jaray waa soo geliyey marka backgroundka laga jaraa book baan ku sawiray marka hore ku qoray kadibna waxaan ka jaray backgroundka photoshopka kaga jaray signatureka anaa iska leh signatureka marka hadda waxaan waa iska sample aan usoo geliyey marka waxaa noo dhiman oo kale looga kale aan soo gelinayaa oo ah loogada halkan kuma jidho loogada pagekayga weye marka iyadana waa sorry background kumaana ogeyne backgroundkii wadato maxay tahay sameynayna background kumaana ogeyn marka background bay wadatay backgroundkii baan ka jaray kadib waa yareynaynaa halkan aan dhiganayaa marka loogado kale marka ma raba inay saa usoo muuqato marka waxaan ka dhigayaa waxa la dhaho watermark camal baa ka dhigayaa marka saa uga dhigo halkan baa imanayaa opacitygiisan imanayaa oo aan derbigan gelinayaa marka inaha rabtid baa ka dhigaysaa inahaasaan u daynayaa ayadana halka hayga joogto hadda waxa i dhiman oo keliya waa qoraal ah inaan certificateka magaceedii ku qoro marka certificateka inta badan waxaa loo isticmaalaa old englishkaas loo isticmaalaa haddaanu kugu jirin googleka ka baari ka dhaa waa kala soo degi ka dhaa marka farta caddaan baan ka dhiganayaa sorry xarfaha ugu horeeya waxaan ka dhigayaa number weyn waabiyahada kadib control T baan leeyahay waxaan doonayaa inaan labada looga dhexdooda ku simo shift baan qabanayaa oo yareynayaa kadib hore baan soo kaxeynayaa inahaasaan u daynayaa marka loogadii hadda waxa keliya ka maqan waa code ama number marka codeka kalarka waa cadaan halkan waxaan ka dhiganaa marka
si aan oga dhigno 1 to 1 baan leenahay waxaan dul gashanaynaa number code ah code baan dul gashanaynaa marka xogaa farta waxaan ka bedelaynaa size-ka iyo waxaan ka bedelaynaa color-ka okay hadda waxaan tusinayaa intayna isku wada xirin garanaysaa itemyada halka yaala intayna isku wada xirin sida loo bedelayo garanaysaa background-ka ama foreground-kan waxa weeye sida loo bedelayo hadda bilmatal qaybtaas saraan rabnaa inaan bedelno waxaan tegaynaa shapeskii qaybtaasi lahayd oo ah shape 1 shape 1 waa kana isagaa ku dhufanaysaa dooranaysaa kadib right click baa leedahay right click markaad tahdid gradient baa tegeysa kadibna tig baa sii saaraysaa halkaas baa ka bedelaysaa colorka iyo nooca aragti kaga dhiganaysaa tusaale kalaradii inoo doornaayo qaybtii hore kusoo aragteen mid ka mida baan saaraynaa hadduu halkan ku jiro kuwa jire soo celinaynaa halkan kasoo dooranaynaa qaybtan inuu yahay u malaynayaa halkana laga helaya marka tan oo kale tan aan tusayo waa kan colorkeedii marka rabtid qaybtan inaad saadhidna ana horta okay soo leedahay sidoo kale intaan haga ka bixin waxaa jira halkan colors baa ku jira caadiya colors caadiya ku jira oo hadda blue baa dooran markii tan laga soo tago qaybtan button baa la yiraahdaa color kale ku jira oo ah noocan foreground normal waana ku jira sidoo kale colorkan waan isticmaalay oo soo aragteen marka ayu color ka u baahan tahay noocu doona ha ahaado iska dooranaysaa adigu danaynaysid oo qurux badnaada iska dooranaysaa marka ilmatal hadda kana uga tegaynaa okay baan leenahay okay markaa dhahdid kana markaa rabtid inaad colorka saadid kana horta koobiyeynaysaa right click baa leedahay copy layer baa leedahay shape 2 baan raadinaynaa shape 2 waa kan waxa right click baa leedahay kana paste ku dhaysa oo ka uu isbedelayaa isla sidaas si lamid ah waxa sameynaysaa group 1 oo qaybtan oo group ka dhignay groupkii baan raadinaynaa ugu hooseeya saan filaya waa kan groupkana right click baa leedahay paste baa qoranaysa
garanaysaa marka dabcan saas oo kale hadda bay halkan ahaabaa maqan laakiin dhib ma laha hadda laftigeeda waa la diyaarin karaa laakiin maadaama wixii group u ahaa kalarkana ka sara maray marka kalarkana saasaa loo bedelayaa halkaasaan ku joojinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu